ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad dunida ka joogtaan bartaad inagala socotaan waa saxafi film su'aal abaad ka dhahtaan arrimaha Hollywoodka oo aynu ku falanqeyno channelkan. haddaba daawadayaal jilaaga caanka ah Arbaaz Khan lana dhashay jilaaga kale ee Salman ayaa waxa uu ka hadlay guurka walaalkiis goorta u dhacayo. Arbaaz Khan oo jariirada loo yaqaano Indian Times wareysi aad u dheer siiyay dhinacyo badanna taabanayay ayaa waxa uu ka jawaabay su'aal la weydiiyay oo ahayd goormuu walaalka Salman guursanaya. waxa uu yiri su'aashaasi intaanan ka jawaabin ka hor mowduuca aad meeshan igu balamiseen ah filimka Dubangi 3 iyo sida uu noqon doono marka tiyaatarada dalkaasi India la saaro aan ka jawaabo. haddaba wareysiga qaybihiisa ugu badnaa waxa uu kaga hadlay jilaaga caanka ah Arbaaz Khan filimka Dubangi 3 trailerkiisa waa la sii daayay waxaana la filayaa in 20ka December bisha haatan aynu ku jirno la saaro tiyaatarada dalkaasi India. Arbaaz Khan qudhiiso filimka waxa uu ka yahay qayb waxaana uu ku daadihinayaa magaca Makan Jandi Bante. waxa uu sheegay in filimka heesiisa markii la daawaday ay dadku aad uga wada heleen taageerayaal badanna uu filimku haysto lana wada sugayo goorta tiyaatarada dalkaasi India la saaro. maxuma buu yiri saadaalinta aynu saadaalinayno in filimkaasi marka tiyaatarada India la saaro maalmaha ugu horeeya lacagaha uu soo xareyn doono. waxa uu yiri silsiladan Dubangi 3 waxa ay ka mid tahay silsiladii ugu wanaagsanayeen abid markaasi anigu maalgeliyo. sidoo kale waxa uu sheegay in filimkan lagu soo daray oo uu markaasi roolka negative-ka uu daadihin doono Sandeep oo ah jilaa ka tirsan aktarada koonfurta dalkaasi India. waxa uu sheegay doorkiisu aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay sidaad wada ogtihiin filimka qaybo hore waxaad ku daawateen buu yiri Sonakshi Sinha oo iyaduna aanan ka marnayn goobta oo ku jirta. waxa uu sheegay filimkan haatan waxa director gareeyay isagoo filimka markaasi wali promotion ama waxaysiin u sameynaya in ninkaad wada garanaysaan ee Prabhu Dev waxa uu ka mid yahay yiri dadka ugu wanaagsan ee filma markay noqoto in la qaabeeyo sameeya. haddaba markii uu soo gabagabeeyay filimkan iyo waqtiga tiyaatarada dalkaasi India la saaray iyo rajooyinka uu ka qabo ayuu u soo jeestay guurka walaalkiis goorta u dhacayo. waxa uu yiri guurka walaalkay waxa la weydiinayaa muddo ku dhow 30 sano oo waxa la leeyahay buu yiri goormu walaalka Salman guursan doona. haddaba su'aashaasi haddii aan isku dayo oo aan ka jawaabo goorta walaalkay uu guursanayo iyo cidda markaasi uu guursanayo oo noqon doonta gabadha aniga dumaashada ee noqon doonta waxay ku haboon tahay buu yiri in Salman waafkiisa ka sheego. waxa uu yiri dadku ma ahan inay ku mashquulaan nolosha gaarka ee walaalkay Salman oo ay markasta isweydiiyaan goormu Salman guursan doona yay tahay gabadha Salman noqon doonta marwada markaasi nolosha la wadaagta. waxa uu yiri mashquulkaas tirada badan waxa uu keenay buu yiri dib u dhac oo mararka qaar waxa uu Salman kuugu jawaabayaa maxay aniga iga rabaan oo ay ugu mashquulayaan buu yiri Salman noloshayda gaarka gabadha aan anigu guursan doono noloshana ila wadaagi doonta gabdhaha kale maxay ka duwan tahay. aktar badan oo aan wada shaqeyno ayaa guursaday buu yiri hablana qaba sida aniga la igu mashquulina cid loogu mashquulay hore uma aanan arkin. haddaba arrintan ka soo yeertay Arbaaz Khan ee mar dhow ayaad afkiisa ka maqli doontaan Salman gabadha uu guursan doono isaga ayaana idin sheegi doona shaki badan ayaa abuurtay. waxaa la isweydiiyay oo dhinacyo badan laga eegay ma waxbuu og yahay sidii wuxuu u waramay qof xog ogaala oo markaasi horodhac ma uusan samaynin qofna ma uusan carbaabin waqtina ma uusan sheegin laakiin waxaa meesha ku jirta in arintu ay xaqiiqo tahay oo guurka Salman soo dhow yahay. waxaa kaloo meesha aan ka marnayn dad isaga ka agdhow oo ehelkooda iyo qaraabadooda oo markaasi si xuraamaysi hoose loo wareystay waxa ay sheegeen arinta Arbaaz uu ka dhawaajiyay in ay soo dhowdahay saadaalinta aan filaynana ay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan. Salmanna guurkiisa isaga qudhiisa uu afkiisa ka shaacin doono. haddaba wararku waxay sheegayaan in jilaaga caanka ah Salman markan ay taagan tahay meesha ugu dambeysay reerkooda marar badan ayay isku naceen waqtiga uu guursanayo oo gabdho badan ayaa loo soo xulay lana hor keenay oo la yiri gabadhan ayaa kugu haboon balse Salman waa uu ka biyadiiday. waxa uu yiri gabadha aniga nolosha ila wadaagaysa aniga ayaa keensan doona. waxay u egtahay markan qabanqaabadii qoyskiisa ay ku jireen in ay aad iyo aad uga xog badatay
jilaagan haatan konton ayuu kor u dhaafay oo waxa uu socdaa lixdamaadkii ilaa haatanna marwadii isaga nolosha la qaybsan lahayd gacanta kuma uusan dhigin walow dadka badanaa ay saadaaliyaan in ay jiraan gabdho badan oo markaasi isaga rabay inay nolol la wadaagaan oo ay ka mid tahay agtarada caanka aad wada garanaysaan ee Aishwarya Rai haatanna marwada u dhaxdaa Abba Sheekh Bakshan wiilka uu dhalay Amita waxay haysaa gabar dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aad u culus waxaana dadku ay sheegaan in Salman ay ahayd Aishwarya Rai gabadha ugu dhow ee gacanta ku qaban karta nololna la wadaagi kadha walow ay u dulqaadan weyday cadaadiska faraha badnaa ee uu Salman saaray iyo filmadii markaasi ay jilaysay oo suurtagal ahayd goobaha qaar filmada lagu duubayay in uu Salman yimaado Masayr amaba Hinnaas dartiis sidoo kale waxaa ka mid ahayd gabadha la oran karay markii ay Aishwarya Rai booska ka baxday waa ay bedeli kartay waxay ahayd Katrina Kaif muddo ayay wada socdeen waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee Salman iyo Katrina kala qabsadena dhanka dabeecadda iyo akhlaaqda midna ma aysan ahayn Masayrka dhankiisa walow markii dambe uu dagaal dhaliyay haddana waxa ay sheegtay inuu markaasi jeclaa suurad aan suuradeeda ahayn inay isu yeesho oo waliba dhanka indhaha ay plastic surgery isaga samayso si markaasi ay xoogaa ugu soo ekaato Aishwarya Rai isagoo raba halkaasi Salman inuu ka milicsado muuqaalkii wadnihiisa ku dhaganaayay aadka u jeclaa Aishwarya Rai balse arrintaasi waa ay ka biyadiiday Katrina Kaif sidoo kale gabadha kale ee la oran karay Salman ayay nolol la wadaagaysaa marar badanna la buunbuuniyay oo la yiri guurkooda ayaa soo dhow farantigiliskooda ayaa dhici doona waxay ahayd gabadha reer Yurub ee Luliana Vantour oo qudheeda muddo badan la socotay gabar model ayay ahayd actorkan xiriir wanaagsan ayaa kala dhaxeeyay waxaana la islahaa ninkan mar raba gabar u dhalatay reer India maadaama gabdhihii uu ka calmaday oo ay fanka ku wada jireen qaarkoodna la guursaday qaarka kalena ay iskhilaafeen oo ay ku heshiin waayeen guurka waxay noqon doontaa gabar soo dhaweysa Salman fahantana dabeecadiisa iyo waxa markaasi uu raadinayo balse Luliana Vantour lafteedu meesha waa ay ka baxday oo ugu dambeyn waa ay kala haadeen haddana dib waxay isugu soo noqdeen Katrina Kaif qudheeda oo markii dambe uu reerkiisa u geeyay oo muddo badan markaasi la buubuuninayo oo la xiriirkii Katrina iyo Salman ayaa dib u soo noqday oo guurkooda ayaa dhici raba arrinta Katrina waxay noqotay mid lafteeda aan markaasi wanaagsanayn oo Katrina markay laba filin la jishay jilaagan caanka ee Salman ayaa waxaa soo ifbaxday in ay saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo wanaag iyaga ka dhaxeeya ay ku wada shaqeynayaan balse aysan jirin in wax guura ay ku heshiiyeen amaba mustaqbalka ay rabaan nolol inay wadaagaan walow dadka qaarkiis oo ka agdhow actorka caanka ee Salman iyo Katrina ay sheegeen in Katrina Salman dadka la dhashay amaba ehelkiisa ay aad u jecel yihiin ayna tahay gabar markaasi ay sidaahdeen way ku habboon tahay walow uusan dhaafaynin gabar markaasi aflaanta jisha Katrina waxay u xusheen inay tahay gabadha kaliya ee qancin karta soo dhaweyn karta wiilkooda balse Salman qalbigiisa wax kale ayaa ku dhagan arrinta la wada sugay ee ahayd goorta uu Salman guursan doono iyo gabadha uu guursan doono waxaa la moodaa oo waliba saadaalinta sida u dhowdahay jariirada dalkaasi Indian ay qorayaan in markaan sidii hore ay ka soo dhowdahay sanadkan 2020 waxaa la filayaa in reer Cabdirashiid Saliim Salman oo qoysku ka soo jeedo Salma Khan ay shaacin doonaan wiilkooda 60ka madaxa sii gelin raba goorta guurkiisa u dhacayo iyo gabadha markaasi isaga nolosha la wadaagi doonta actorkan dad badan oo dunida daafeeda jooga ayaa aad ugu mashquulay isweydiiyayna sababta keentay inuusan jilaagan guursan sida wada ogtihiin Sunudol oo kamid ah actoradii ku soo biiray fanka 80maadkii waxa uu guursaday gabadha isaga markaasi ilmaha u dhashay ee Pooja Doll 80maadkii walow uu muddo qarinayay waxyaabaha keenaya in ay qariyaan marwooyinka iyaga u dhaxana waxaa kamid ah taageerayaasha ama faniska ay leeyihiin ayaa yaraanaya habla badan oo markaasi aad u jecel inay daawadaan actorada markaasi iska apolada oo aan xaasaska lahayn taageero wanaagsanna u haya filmaantooda ayaa markuu guursado waxa ay leeyihiin actorkan sidoo uu guursadayba filmo wanaagsan ma uusan keenin waxa ku jira masayr markaasi niyadda iyo qalbiga kaga jira walow aysan suurtagal ahayn xitaa oo laga yaabo inay laba qaarad ku kala nool yihiin haddana hami ayaa isaga jira oo gabadhu markii ogtahay ninka inuu naag leeyahay qalbiga si ugu qabato amaba waxyaabaha uu sameeyay xitaa jacayl fara badan uma qaadayso balse markii ogtahay inuusan xaas lahayn waxa suurtagal ah markaasi inay taageero u hesho sida hablaha Soomaaliyeed fanaaniinta qaarkood inta aysan guursan koor taageero badan ay ugu hayaan markii ay guursadaanna xooga taageeraha ay u hayaan uu hoos u dhaco taasina waxaa sababaysa leeyahay gabar walba oo Soomaaliyeed markaasi rajo waxay ka leedahay wiilka Soomaaliyeed ee fanka ku jira ee fanaanka inay nolol la wadaagto balse markay ogaato inuu guursado waxa suurtagal ah inay taageeraha u haysay ay kala noqoto mararka hore waxa ay ku leedahay heesihiisa ayaan ka helay aad baan u jeclahay fanaankan codkiisu waa uu macaan yahay balse fanaanka markuu guursado
oo marwadii isaga nolosha la wadaagi lahayd uu gacanta ku dhigana waxay ku leedahay codkiisu waa uu isbedelay oo haatan heesihiisa sidii hore uma dhagaysto haddaba daawadayaal barnaamijka koobnaa aynu kaga hadlaynay taariikhda salmaan iyo waqtiga guurkiisa uu dhici doono iyo gabadha uu guursan doono oo la filayo inay reerkiisu shaaciyaan barta aad ka daawanaysaan waa saxafi films barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa intaynu barnaamijkan midka xiga hawada ku kulmayno inagoo aabahda saxafi waxaynu idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh